عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga qaali ku soo dhawaada channelkeena waa walaashin Anis Esther waxaan idin wadaa maanta bila marka ugu hor hadad ku cusub tahay please subscribe hada hore noola joogto aad ku maasan tahay daawashadaada maanta waxaan idin wadaa cabitaan aad u fiican oo caloosha 3 days lagu gaaraynin caloosha hada 7 days wadina kaba si fiican laakiin qofka tadawur bari isticmaalo oo calooshiisa wax ka dareemi waayo ha igu soo laabtaan commentiga hoos ay imaado haydo umada beenta kada ma fahanteen waa balan waa stop garana kanaalkayga xitaa waa xiraaya waxaan iska kaftan laakiin waxaan idin sheegaya wax tarkiisa makshuwa inaad ku dadaashid sameeysid isku daydid one day waxba iskaga dareemi kartid laakiin 7 days what aad waa fitamiin mid koowaad oo tabar iyo waxbaad ka helaysaa sakan calool lagu ma gaar calooshaada duudkay ku dhagi doontaa laakiin waxa aan ka laga cabitaanka laga sameeynayo wax nafta jeceshahay ma ahan nafta laakiin dib ma fahanteen okay cabitaankeena waxa waaye beetroot soo dhaqay si fiican soo okay kaamirada okay beetroot waaye 3-4 xabo beetroot oo soo kala jeexay sanjabiil wajab kuusan oo qiyan ya waxa dad daaba karabtina sidaadaba waxaad isticmaalaysid wax organic ah noqdo baraf baby spinach marka beetroot iyo baby spinach iyo sanjabiil isku dar nafti jeclaanaysa intee taala laakiin hadaad isticmaashid ood wadid markii dambe dhadhan kula yeelanay dib uma arkaysid ku macaanaani waadna ku caafimaadi sidoo kale malab hada sokor laakiin waan kugu horay hadee tahay make sure inaad sokor ku darsatid waayo ma cabi kartid xoog qareer yahay laakiin aniga malab ku darsanaya hada waxaad isticmaalaysid inta badan organic ku ahaado dadaaba karabtid waaye blenderkeena soo qaadanay beetrootki iyo sanjabiilka ku daray ku ridaya waa barafki baby spinach waxaan ku shiidan half caana ah ma idin tusin koobkan halfkiis oo caana ah malabka daarta kor oo walaaqan karta hadaad rabto ku shiidan karta anigoo ku shiidanaya kayba shiidan okay jibinaya ka raali noqdo qaylida markaas xabteeda qaaliga waan soo shiiday ma ahan asaga diga iyo dambasa ka soo dhigay waxaan ku soo shiiday smoothie iyo dama qaaniga mashiinadii inay leedahay aniga laakiinse tala soo taabtay aragta waa sida smoothie ka dhigaysa asaga dhan ma lahaanaysa qashin iyo wax laga ميرو وحدنا نسكو عبتدا الله رب إن شاء الله قوة هذا كشواية هالما أوكي قوة شانكو شواية أوكي أصحابتي دقالي قول أرتان سيدا قروح البضان وكسو بحي واساقا دون واقرين وأدقي هاي أوكي لكن سنجبيل كما عرفت sanjabiil kaas fiican uga dhadhamaya qaraarsaas ma ahan malaban ku darsada aniga ma sha Allah wad arki doontaan tadawbari da inta isku darsatid waad ka sheekayn doontaa calooshaada cabir caloosha dhan way ku baxaysaa wasoo qorna calooshaada ma lahaanayso daalka xubna daaca sidaan wada ognahayba spinachka dhiiga xoog u soo celiya asagoo dab maraba maca daaliga asagoo smooth inta ka dhigtay bisee sharaab aad cabtay maxaad u maaleen kartaa calooshaada ku nadiifinaa sanjabiilka waad ogtiin asaga caafimaadkiisa beetrootka iska dhaaf waad ogtahay marka uurka kala aad leedahay ama qof hooyo dhashadaa tahay ama qof xanuunsan inta badan waxay kugu boorinayaan dhaqtaryaasha greenka badso beetrootka isticmaal
waad aragtaan marka saddexda shay meel iskugu tagtay isminij waa sinjibiil waa beetroot iyo malab intooda lagama sheekeyn karo waad arki doontaan waan heli doontaan natiijadiisa insha Allah waad ku caafimaadaysaa wax shayga haddaad rabto caafimaad ahaan u isticmaashid marka hore niyeyso niyada gasho ilaahu igu caafi qof ilaah aadamana qof ma caafin karo qof kalena ma caafin karo laakiin waa dadaali kartaa ilaahay wuxuu ku dhahay dadaalkeeda la imoo ku caafinaya mar walba ku siinaya waxa jeceshay laakiin dadaalkeeda la imoo caloosha kale ya calool nacebanaan in maanta calooshiisa iska gooyo ama calool uuna lahaanin oo noqdo isneela nin walba uu jecel yahay inuu calool la'aan ahaado calooshiisa buka ku dhagnaato laakiin baasha hadii lala dadaalin la daba taagnaanin ayadu kuma daayinayso ma fahanteen haddana wadankaan joogno dadka siiba qaboobaha joogo dadka wadankii joogo wadanka waaga hore calool ma jirin mana laga baqi jirin laakiin dadka wadankan joogo wixii organic ma ahan waa qaboobo meel lagu soconaya ma lahan haddaa shaqaynaysid xitaa hal meel aad taagan tahay sida badan ma socotid haddii kala gaari aad saaran tahay aad bay u fiican tahay rag dumar intaba insha Allah ku dadaal natiijada ka heshid bilis hoos igu soo qor qofka markaad aad u soo celisay feedback ama waxaad isticmaashaad aragtid oo wixina ku anfacay qofka waa lagu soo celiyaa si fu tilaabada hor ugu sii wada alla ilaahay maanta waxa isticmaalaysay qof Soomaali walaalkaaga adiga aad waxa adiga ku faa'iiday qof walaalkaa sidoo kale ku faa'iido u dhaxaya niyadeena iyo mar walba iyo horumarkeena waa iniga horumarkeena iniga dadaalkeena anaga dadaalkeena waa iniga horumarkeena si mar walba insha Allah isdiiri gelino